waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij hadda ka hor aan ka hadlay marar badan oo ah dhulka Soomaalida Ogaadenya ee duulaanka lagu soo yahay iyo qaybta uu Mustafa Cagshar ka yahay uu raali ka yahay inuu beesha waliba farmaajo uu soo dejiyo deegaanada Doh iyo Doolo waxaan haddaba helnay evidence ama xaqiiqa barnaamijkan xiriirka farmaajo iyo ka dhaxeeya Mustafa Cagshar ka dhaxeeya iyo lacagaha iyo dhaqaalaha meesha ay soo maraan ayaan maanta rabaa inaan la wadaago waxaan ognahay dhulka Soomaalida Ogaadenya in qaybtiisa xuduudaha gaar ahaan Doh iyo Doolo beelaha degan in lagu soo duulay oo ay farmaajo beeshiisu iyo galmudug beelaha degan ay ku soo duuleen waxaan ognahay cabashadii ay maalin dhaweeyta muujinayeen beesha Bahgari ee ku saabsanayd in lagu soo durkay oo dhulkoodii la qaadanayo oo Mustafa Cagshar uu dhulkoodii ka siiyay beelo kale inuu siiyay waxaan marka rabaa inaan idin taabto xaqiiqada meesha ay wax ka socdaan iyo siday wax u socdaan iyo dadka waxaan wada baaritaan dheer markaan samaynay kadib oo dhinaca dad badan runtii aan uga mahad celinayo ay ka qayb qaateen waxaan soo helnay ninka kingmakerka ah oo barnaamijkan u qaabilsan farmaajo ninkaasi waa nin farmaajo ay isku hayb yihiin waa farmaajo nin ay ilma adeer yihiin waa nin deegaanka mas'uuliyad looga dhiibay asaga oo dowladda Soomaaliyana ka tirsan oo shaqaale ka ah meesha la yiraahdo Cabudwaaq ninkan gudoomiyihii cusbaa ee gobolka Doolo mar dhaweeyto loo magacaabay oo hadda xanuunsan waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu caafimaad siiyo ayaa waxaa lagu qasbay inuu magacaabo ninkan oo uu u magacaabo arrimaha xuduudaha ninkani farmaajo ilma adeer yihiin maadaama ay farmaajo ilma adeer yihiin Cabudwaaq buu degan yahay waxaase loo magacaabay inuu xuduudda ka soo gudbi karo oo uu noqdo nin mas'uulka ah xuduudaha Soomaaliya iyo deegaanka xuduudaheeda ninka mas'uulka looga dhigay weeyaan waana ninka dhaqaalaha farmaajo laga soo qaado ama bila Soomaaliya ka yimaada keena weey deegaanka soo geliyo weey oo new police ninka la loosho weeyaan waa ninka farmaajo lacagta ka soo qaada oo u geeyo Mustafa Cagshar iyo Xuseen Qaasim weeyaan ninkaas waxaan rabaa inaan marta magaciisa idin la wadaago ninkaas waxaa la dhahaa Quule Urdoox Shaaciye ninkaas nin nagu cusub ma aha dadka deegaanka deganna nin ku cusub ma aha waa nin aad iyo aad u fara badan oo howlo badan deegaanka ka haya waxaan haynaa cod aan idin la wadaagi doono isaga oo dadkiisa la hadlaya beeshiisa isagoo la hadlaya cod aanu ka qabanay ayaan idin la wadaagi doonaa marrow waxaa la dhahaa ninkaasi Quule Urdoox Shaaciye ninkaas weeyaan waa ninkaas ninka kingmakerka oo lacagta farmaajo ka soo qaada oo keena deegaanka keena oo Mustafa Cagshar lacagta u geeya oo Xuseen Qaasim lacagta u keena oo meel walba oo beeshiisa lagu waxyeeleeyo ciidamo keena waa ninka ciidamada abaabula waa ninka from Caleen ilaa iyo Lehelow ilaa iyo Wardheer ninka qaabilsan weey dowladda deegaankuna Mustafa Cagshar wuxuu u magacaabay ninkan aad arkaysaan waa nin dowladda Soomaaliya ka tirsan waa nin Cabudwaaq degan wuxuu Mustafa Cagshar u magacaabay inuu noqdo madaxa xuduudaha inuu noqdo ayuu
magacaabay ninkaas aad aragtaan. waxaan haynaa noteski hoteelada uu ku seexday, lacagihii ku baxay, qarashkii ku baxay hoteelada uu seexday. waxaan kaloo haynaa lacagihii Hormuud loogu soo diray, informationkoodii lacagaha Hormuud baa loogu soo diraa marka uu soo qaadana lacaga badan oo runtii kumanaan thousands of dollars gaaraya ayuu keenaa ninkan. informationkiisa Hormuudna wakaas isagana waan helnay, waan keenay. marka waxaan rabaa inaan idiin sharxo ninka la yiraahdo Qulle Urdoox Shaaciye muxuu yahay. Qulle Urdoox Shaaciye waa nin ay isku hayb yihiin Mustafa Cagjar, waa nin ay isku hayb yihiin Farmaajo, ay isku hayb yihiin wey, oo ilma adeer yihiin. waa ninka lacagaha Mustafa Cagjar iyo Xuseen Qaasim u keeno wey. waa ninka xuduudaha dagaalada ka socda ka wada wey. waa ninka amray new booliisku inaysan celinin oo aysan wadada ka celinin wey, si aanan loo celinin ninkan oo aysan new booliisku celinin. waxaa loo magacaabay jago asagoo aanan deegaanka waxba ku lahayn oo aan deegaanka deganayn. Mustafa Cagjar wuxuu u magacaabay gudoomiyaha ama wuxuu u magacaabay madaxa xuduudaha ayuu u magacaabay. Qulle Urdoox Shaaciye dowladda Soomaaliya xil weyn buu ka hayaa, wuxuuna saldhigiisu yahay Cabud Waaq, wuxuuna ka howlgalaa dhulka Doolo iyo Doh, ninka Caleen laga soo bilaabo ilaa iyo Wardheer, ninka dagaal geliya beeshiisa u sheega informationska ay u baahan yihiin oo dhan u gudbiya weeyaan ninkan. now waxaa jira shir hadda lagu qabtay oo hadda ka socda meesha la yiraahdo Wardheer. shirkaas waxaa soo abaabulay Mustafa Cagjar baa soo abaabulay. wuxuuna shirkaasi u dhacayaa codsi ka yimid beesha Farmaajo, codsi ka yimid buu u dhacayaa. kama imanin codsigani beesha Makaahil, kama imanin beesha Ogaadeen, kama imanin. wuxuu shirkani u dhacayaa maanta oo lagu qasbay odayaasha iyo salaadiinta beesha Makaahil, gaar ahaan beesha Ismaaciil Gumcadle. waxaa lagu qasbay inay shirkaas ka soo qayb galaan oo ay Wardheer yimaadaan oo ay si degdeg ah shirkaas uga soo qayb galaan. now dadka shirka abaabulaya ama shirka Hormuudka u ah ee dowladda ka socdaay waa dad aanan Ogaadeen ahayn wey. hal qof oo Ogaadeen kuma jiro. waa dad aanan Ogaadeen ahayn oo si gaara loo soo xulay oo loogu talagalay inay u maxlalaan beesha Farmaajo, inay u maxlalaan xuduudaha iyo deegaanka ay rabaan inay helaan, inay u maxlalaan. conversationskii dhacay baa marka wax yar idinkaga sheekeynay. number 1, shirkii la galay shalay Wardheer lagu galay, nimankii maamulka ka socday Farmaajo, waxaan leeyahay Mustafa Cagjar, iyo nimankii maamulka Farmaajo ka socday iyo beesha Ismaaciil Gumcadle ayaa wada hadlay. markii la wada hadlay beeshii Farmaajo waxay dhaheen anagu dhul waxaan ahayn oo na deeqa ama na anfacaya ama aan ku qanacayna ma jirto. beeshii Ismaaciil Gumcadle way diiday. waxaan runtii ammaan u soo jeedinayaa, aanan rabaa inaan halkan ka salaamo odayaasha, magacyadoodana waa sheegaya odayaasha, sababtoo ah waxaan rabaa inay ogaadaan inaan ognahay dhaqdhaqaaq kasta oo ay samaynayaan. shirka markay galaan nin walba iyo wixii uu ku hadlay iyo nin walba ay mowqifka uu ka istaagay arrinta masiirka Ogaadeen, masiirka Makaahil, masiirka Gumcadle, masiirka Ismaaciil Gumcadle, meesha ay ka istaageen nin walba meeshuu ka istaagay inaan ogaano. si ayaan ugu talagalnay magacyadooda, liiskooda, informationka maanta wixii meesha ka dhacay oo dhan waa la soconnaa. number 1 waxaan salaamayaa Cabdullaahi, waxaan salaamayaa Sheekh Saxana Bare, waxaan salaamayaa Cismaan Owdubad, Bashiir Lowhaar, Maxamed Duulane, Cabdirasaaq Xuseen Mire, Yuusuf Macalin Maxamed, Naste Xirsi iyo Maxamed Axmed Dhiriq. intaasba waxaan leeyahay odayaashii weeyaan Ismaaciil Gumcadle ee shirka uga qayb galay.
waxaan marka ku guubaabinayaa odayaashan iyo raggan meesha joogay waan ognahay shalay dagaal fiican baad gasheen dhulkiina in la boobo ayaa la rabaa shirkana shir aad idinku cilaamiseen ma aha Ismaaciil Gumcadle dagaal buu ku jiray dad baa laga leeynayay Mustafa Cagjar weligiis shir uma qabanin uma yeerin Ismaaciil Gumcadle oo dhibka idin haysta muxuu yahay ma oran hadda shirkan la qabtay waxaa codsaday farmaajo beeshiisa codsatay amar ku siisay Mustafa Cagjar inuu wardheer uu keeno dad shirka nimanka hadda Mustafa Cagjar wakiilka ka ah hal shakhsi oo ogaadeen kuma jiro waa dad meel kale laga soo qolay oo meel kale laga soo ururiyay oo deegaanka wax aqoon aan u lahayn waxa laga ilaaliyay ogaadeenkii deegaanka yaqaani waxa la keenay dad aanan deegaanka aqoonin sida loo kala degan yahay aqoonin taariikhda deegaanka aan aqoonin cilmi aanan u lahayn sidii deegaanka loo deganaa ama weligii loo deganaa aan aqoon u lahayn ayuu meesha keenay waxaana loogu talagalay in lagu qasbo beesha Ismaaciil Gumcadle inay ogolaadaan ama qaataan awaamiirta beesha farmaajo ay keentay miiska oo ah inay dhul hesho inaan laga wada hadlin dilkii iyo dhicii iyo dhiiggii ay geysteen inaysan ka hadlaynin way diideen inay ka hadlaan arrintaas marka waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan beesha ogaadeen ama xukuumadda aan la wadaago inay jirto barnaamij cad oo aan geedna loogu soo gaban oo ku saabsan in dhulkan la dhaco oo beesha farmaajo loo dhaco Mustafa Cagjarna uu absolutely hormuudka ugu weyn ka yahay iyadoo lacaga la kala qaatay aana idin sheegay lacagaha Mustafa Cagjar soo gaara inuu ninkan keeno lacagaha new police la siiya inuu ninkan keeno magaciisana waa halka ku qoran waa aragtaan marka information kaasaan idin la wadaagay waxaan rabaa odayaasha inaan ku guubaabi ha ogolaanina mana ogolaan kartaan wax masiirka ummadda ka soo horjeeda ama dhibaato u keeni kara masiirka ummadda ma ogolaan kartaan laydinkamana aqbalayo dhulkaasna dadka iskale ma bixin kartaan shacabka iskale waxa iskale maxaasta iskale lagu laayay u soo halgamay dhiigooda u soo daadiyay 30 sano halgan ugu soo jiray maanta in dhulkooda laga qaado wax la aqbali kara mana ogolaan kartaan wax aan noo cuntamin oo aan dadka deegaankaas degan aan noo cuntamin waxaan idinkula dardaarmayaa ha ogolaanina culayska Mustafa Cagjar idinku hayo ha ogolaanina xabsi haddaad u gelaysaan haddii madaxdiina la tooganayo oo xabad la dhacayo odayaasha Ismaaciil Gumcadle waxaan kula talinayaa ha ogolaanina hana ka yeelina Mustafa Cagjar